السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبة ولا لها يبشر قالجاه كحرن اسمهم برسوم سلامة إسلام كانت كسلامة يا سلام كدب صاحب يال ولا ليال دتكي قالجة أها أو أنكفانو رنهانتي وين إسويني دد إسوينا وقت باكلجيي لكن هلا كان هذا وحن أصو فريستي بل إن إذن كدب جيو فريمه إنه مالنتي دور كنا فريمود بإسو جارتو ورمدمته ورمنوشاي ورحجة كذا malaha hadda anaaba la ii walwalayaa awal boorogaraamo aan soo diyaariyay iyo waxbay dadku daawan jireen oo waxa weeye ku faraxsanaayeen laakiin run ahaantii waxaan halkaan u soo galay inaan idin la socodsiiyo wax kasta oo jira insha Allah taala maadaama aad qalbiga iiga qoran oo aan ku faanaatihiin walaalayaal qaaliyaal run ahaantii labadii bilood oo ugu dambeysay waxa weeye mashquul aad u daran baan galay mashquulkaasina wuxuu ahaa mid yimid oo kii ilaahay nagula dardaarmay ah waxa weeye aabahay baa aniga iga xanuunsaday waxa weeye 2 bilood muddo ahna uu iga xanuunsanaa waxaana taasi ay saameyn ku yeelatay noloshaydii aad igu taqaaneen iyo farxadaydii iyo firfircoonidii bay saameyn ku yeelatay run ahaantii aabahay hadduu muddo 2 bilood xanuunsanaa waxa weeye haddana waa uu dhintay allaha u naxariisto marka walaalayaal caawo habeenkiisii 7 ama maanta aan dhahay maalintiisii 7 oo uu qabriga ku jiro ayay noqonaysaa waxaa jirta inaan idinku kalsoonahay dad aan jeclahay oo aan ku faanana aad tihiin wax kalena halakan umaana soo fariisan ee waxaan u soo fariistay inaad aabahay iigu ducaysaan dadkayga aan jeclaa oo taageerayaashayda ahaayo oo aad faataxada iigu soo martaan oo ilaahay inuu u naxariisto aad ila baridaan walaalayaal wax kale idin kamaana maqnayn anigu processka aan bilaabay iyo isfahan brosom hada waxa weeye mid soo u bilowday u soconaya marxalado waa ku imaan karaan oo waa ay gooyin karaan oo waa daahin karaan oo waa dibridi karaan laakiin shakhsiyan xabiib shekeeti aniga lagama yaabo waxaan idin bilaabay aniga oo nool inaan idinka joojiyo ma ahayna wax aan ama lacag ku raadinayay ama YouTube ama caanimo ama waxyaabo noocaasa laakiin waxay ahayd inaan dadka ilahamiga ah ama dhalinyarada Soomaaliyeed record u xiro waana arki kartaan oo ready faa'iidadii ugu horeysay waaban haystaa baan oran karaa sababtoo ah intii aan wax soo turjumayay dadkii iga dambeeyay oo wax soo turjuma hadda wada cad baan mariyay oo maantayto haday malaayacnigii adduunka la wareejin jiray idin soo dhigaan war waxayo bilaa murtida naga tag marka tiraahdaan asiga buugaagti mahmaahiyada iyo gabayada dib u soo furaya run ahaantii marka waxay aniga iga ahayd inaan soo noolayna xigmadii waxay iga ahayd afkeena inaan ku dhiirano waxay iga ahayd cilmigii inaga horeeyo waalidiinteen inooga tageen mahmaah kasta oo mahmaahayaha Soomaaliya kamida waxay ka qaalisan tahay dhaxalada caalamku dadku isaga tagaane waxay iga ahayd inaan aanu dhaxalkaas sii noolayno run ahaantii recordka ama scoorka aan xirayana wuxuu ahaa cidii iga dambaysa anigu waan ogahay waligay inaan sii joogeen abwaanimadaydu sii soconayn ana wax soo gudbinayn laakiin waxay ahayd cidda iga dambaysa malaayacnigii iga horeeyo kale inaysan idin keenin ee taan idin keeno xigmad murti xul idin keento insha Allah taala walaalayaal xabiib shekeeti waa idin jooga waan caafimaad qabaa xaalku waa caadi kaliya 2 bilood waxaan isu weynay oo aabahaygii idhalay aan jeclaa adduunka igula qaalisanaa xanuunkiisii ku yimid bay ahaayeen waxyaabaha aan isu weynay niyadaanan ii fadhiyeen oo si kasto aan ugu faraxsanaa inaan idin soo gudbiyo borogaramadii aad jeclaydeen ama halaasiga ahaa oo af Soomaaliga kaabayay haddana waa ii suura gali weyday oo waaridkay oo xanuunsan baan waxa weeye la xanuunsanaa oo ku mashquulsanaa arintiisa walaalayaal maalinkii 7 bay u tahay taageerayaashayda qaaliga dadkayga maantayto maalinkii 7 oo godka u hooyanayo إن شاء الله تعالى وحن رجينا إن يجوسوا دعيسان إن فاتحة يجوسوا مرتان إن إذن كانوا والدين تين إلهي أن حريستو رمان تين والدين تين ربي أن حريستو أو مسلمين تأردن وأن حريستو
maanta waxaa jira dadaaban awlaad ka tegin oo aan loo ducaynayn oo keligeed inay dhintaan laga yaabee ilaahay ha u naxariisto annagaa dadkaasna dad oo ah oo islaamnimay xaq inoogu leeyihiin inaan u ducayne insha allahu tacaala. intaas kadib walaalayaal anigu waan idiin joogaa. arrintii dee i mashquulisay ama brosesyadii hadda dhinac bay u dhaceen. insha allahu tacaala mar dhow waxa aad iga filataanba waa afkeenna inaan kaabno, waa inaan luuqadeenna ku soo hiranno, waa inaan farxadda horumarino, waa inaan jacaylkii iyo quruxdii iyo wanaaggii aan isu qabnay aanu halkaa kasii wadno walaalayaal qaaliyaal. run ahaantii fariintaydu ma dheera. waxaa la yidhi nin hadal badiyana kama kala tegin, nin yareeyeyna ma wada waxaa la yidhi nin hadal badiyeyna ma wada oran, nin yareeyeyna kama kala teginin. marka intaasun baan maanta idinla soo galay. dee ducadaasna waa idinka naawilayaa insha allahu tacaala. inaan idin update gareeyo informationka idinla socodsiiyana farxad iyo qurux bay ii tahay, oo maalin kasta su-aalihiinu waa ii imaanayaan. marka walaalayaal hadda iyo wixii laga bilaabo horey baan u soconaynaa insha allahu tacaala. isfahan brosom wixii aad ku taqaaneen iyo wax ka sii wanaagsan ayuunbaad ugu imaanaysaan. qalbiga iyo quluubta ayaan idinka salaamayaa. السلام عليكم.